السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحنيه نيرجو سافلين حلقة دي فراد عالم كورباهنتا. waxaynu galay caalamkii labaad waa shaydaan mikrofon sita oo khudbadaynaya hub iyo baaskoolado gabadh cadhaysan oo liifmaala iyo qof dad badan dhex cararaya waxaynu la kulannay shaydaamadii siirbiinta ee maska ahayd caalamkanina waa caalamkii beenta iyo khiyaamada iyo baadiyeynta caalamkan waxaan shaydaamada jooga ku soo maray riwaayad muran dhalisay oo la yidhaahdo antikhristos atooraha riwaayadanina waa Bobby Frank waxaana albaabkiisa taagan 7 shaydaan oo dilkiisa u hamuun qaba inkasta oo ay albaabka xoog isugu qaadayaan haddana waxaad moodaa inuu Bobby Frank iskaga xidhay xirsi xidhkaasina waxa uu ku guuleeyay inuu hadba mid isaga oo dulaysan soo daayo oo ka sheekaysiiyo kana waraysto waayaha caalamka iyo siraha ay hayaanba balse dhibtu waxay ahayd in xirsi xidhkaasi uu ku meel gaadh ahaa kadibna ay albaabka ku jabinayaan oo ka laasanayaan Bobby Frank isaga iyo cidii dhageysatayba Bobby Frank waxa uu iminka shaydaamadaasi wacan uga qoray arrimihii warbaahinta waxauna gacanta ku hayaa waraaq uu ku sawiran yahay TV iyo wariye daldalmaya oo duul dad ah dhageysanayaan shaydaanka markan wararka warbaahinta inooga warramayaana waa deekuwi waxa uu leeyahay waxaan ahay khiyaamada aad mar walba ku daganto ee mar walba lagaaga faa'iideysto ee aad mar walba rumaysato ama doqonnimo dhankaaga ha ahaato ama garaad badni dhankayga ah waxaan ahay muraayadaha wixii la doono lagu tusayo ee indhaha lagu geliyay waxaan ahay beenta aad meel walba ka maqlayso inay jirto laakiin aadan rumaysanayn xataa aadan danaynayn waxaan ahay xabsiga aad gundahaaga ku soo gashay ee intaad isku xidheed furihiisii ii dhiibtay aad bay isu malaysid inaad qof fikir iyo aragti madax bannaan leh tahay waxaan ahay xabsiga uu caqligaagu ku jiro aniguna kaama soo saarayo oo adaaba soo galay xataa adiga ayaan doonayn inaad ka baxdo sababta oo ah waxaad tahay dameeridhaan raacday aragti iyo fikir midna ma lihid aad bay isu malaysid inaad aragti madax bannaan leedahay ra'yigaagu waa ra'yigayga aan anigu kuu laqimo uun waanaan ka helaa inaan aragtiyahayga kuu yeedhiyo waan jeclahay inaan sidii ay yar kuu jiito oo aan xadhi qorta kaaga xidho haddii aad wahwahlayso oo kor igu qaylisana aan kuu tuuro balag yar oo aad igaga aamusto si aad u daba cararto oo aad iiga mashquusho maanta nasiib ayaad leedahay maadaama aad gacanta igu dhigtay aniga waa ii ka dulaysay xirsi xidhkii Bobby Frank maanta furihii aad ii dhiibtay ayaan kuu soo celinayaa si aad xabsiga isagaga furto oo uga soo baxdo waxaan kuu kaxaynayaa si aan kuu soo tuso xaqiiqada aan ku mooganaysiiyey ama aad ismooganaysiisay ee iska dhiga tirtay ama aad sidaada u moogan tahay ee aad aniga rumaysatay inawadi waxaan ku geynayaa buuraha Rocky oo ah buuraha adduunka ugu qurxoon kansiyo badanina ay buucdooda ku kaydsan yihiin kansiyadaas la'aantoodna aan wax Mareykan la yiraahdaaba jireen waxa ugu mudan kansiyada dhuxul dhagaxda waa qarnigii 19aad intii aanu batroolku soo bixin ee ay dhuxul dhagaxdu shidaalka ahayd shirkadaha ugu mudan ee soo saaray dhuxul dhagaxdana waxa ka mid ahaa CFNI oo ah mid ka mid ah shirkadaha qoyska Rockefeller inkasta oo sooyaalka qoyskaas Rockefeller ay xumaani ka buuxdo haddana waayahaas waxay ahayd waayihii ugu mudnaa taariikhdooda oo nin kaliya ayaa aabihii ka dhaxlay maamulkii shirkadaha waxaana la odhan jiray ninkaas John D. Rockefeller Jones waxaana uu ninkaasi ka mid ahaa rukniyadii asaaska u ahaa Mareykankaba oo waxa uu adeegsaday qaab ka gedisan jidkii aabayaashii ninkani qoyskooda kuwii ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyayba uu ka gedisnaa waxa uu ahaa deeqsi gacan furan saboolladuna ay hantidiisa nasiib weyn ku yeeshaan isdhuldhig badan oo la fadhiista fuqarada daneeyana arrimahooda sidoo kale waxa uu lahaa indho ganacsade oo marka uu fursad helo uu ka wax taransanayay waxauna ka samaysanayay hanti badan maalin ayuuna wararka ka dheehday in buuraha Rocky ee Colorado laga helay keed dhuxul dhagaxa markaasuu unkay shirkaddan CFNI si ay u soo saarto dhuxushaas waxa uu shaqaalaysiiyay 10,000 oo nin isaga oo aanu kala eegeen caddaan iyo madow iyo hindi iyo Mexico aadna uu u danayn jiray waxauna u qoondeeyay inuu wax ku siin doono nin waliba waxa uu soo saaro ee shaqaysto taasoo sababtay in ragga qaar si xiriir ah u shaqeeyaan halka ay ragga qaar xataa caruurtoodii keeneen ee ka shaqaysiiyeen waxa uu uga unkay goobta shaqada agteeda dhismayaal badan oo waaweyn oo la moodo tuulo si ay halkaas shaqaalihiisu ugu raaxaystaan waxauna uu sameeyay suuq ay wax waliba yaalaan oo qiimo jaban ku yaalaan si aanay dibaddaba wax ugaga baahan
balse rasaas ayaa dhacaysa ee madaxaaga hoos u dhig yaani xabad seeraaro ahi kula tegine dhanka kale waxaa ku yaalla teendhooyin badan waxaana teendhooyinkaas ka bilaabantay dhacdo dhiig ku daatay oo soo martay Maraykanka waana dhacdada la magac baxday dabargoyntii liidlo sababta oo ah shaqaalihii ayaa gadooday oo damcay in mushaharka loo kordhiyo xaqna way u leeyihiin taas balse gadoodkoodu waxa uu ahaa gadood hubaysan inta ay ka guureen guryihii diiranaa ee loo dhisay ayay jidkii meeshaba laga soo gelayay teendhooyinkaas ka dhisteen oo ay goosteen si ay shaqaalahan aragtidooda la qaadan hor joogsadaan oo sidii ay u hakin karayaan buu joojiyaan waxayna noqdeen koox shufto ah oo uu hogaaminayo nin la yiraahdo Louis Tekas degdeg ayuu mudane Rockefeller uga dalbaday dawladda ciidamo ilaalo ah oo gurmada in loo soo diro dawladdiina way ka ajiibtay dhowr jeerna waa la isku dayay in shuftadaas dugaaga ah wada hadal lala yeesho laakiin wax la'aan ayay ku soo gabagabowday marka ay buuraha iyo jidadka fadhigooda ka daalaan waxa ay u soo baxayeen jidadka magaalada iyaga oo mudaharaadaya waxaana hoggaan u ahayd gabadh la odhan jiray hooyo Jones waxayna ahayd magaalaysato weyn oo caana haysatana guri tagsiga cada waana dabeeci in dadka xunxun isu gargaaraan askarta ilaalada ahina way feejignaayeen oo aad uma caabin karayn oo waxa la socday carruurtoodii iyo xaasaskoodii waxaana la soo gaadhay maalinkii dabargoyntii liidlo maalin ay ciidankii ilaalada ahaa heleen mayd si ba'an loo dilay oo meel koone ah yaalla waxayna u ambabaxeen dhankii teendhooyinka si ay xaqiiqada uga soo gungaadhaan balse waxa lagu soo afrogay rasaas iyaguna xoogaa ayay ku tuurtuureen waxaana ka dhintay rag badan kuwo badanina way ka dhaawacmeen laakiin intaasun looguma bixin dabargoynta liidlo ee arrin kale oo weyn ayaa loogu bixiyey shuftadan dagaalamaysa waxa ay teendhooyinka kaga tegi jireen dabkii ay shiteen oo ka dhex baxaya maalin ayuuna mid ka mid ah teendhooyinkii dabkii qabsaday maradeedii oo holac ka kacay markii dagaalkii dhammaadayna waxa teendhadii hoosteeda laga helay god ay ku jiraan 11 carruura oo shuf beelay oo dhuxuloobay sidaas ayaana loogu bixiyey dabargoyntii liidlo markiiba waxa uu mudaharaad ka ogsaday magaaladii oo dhan mas'uuliyaddaasna waxaa loo xambaariyey shirkaddii Rockefeller cidina xaqiiqada may ogeyn balse waa inaynu aadnaa goobtii mudaharaadka si aynu xaqiiqada uga soo gungaadhno innagii ayaana nimi goobtii mudaharaadka dadkii oo dhammi way gadoodsan yihiin waa 1,000 qof ama way ka badan yihiin waxayna caayayeen shirkaddaas Rockefeller si kadiisa ayuun baynu u aragnay qof afka duuban oo si aan dabiici ahayn dadka gadoodsan u dhex qaadaya markii weyna soo gaadhayna gacanta ayuu ii soo fidiyey sidii inuu islaamayo oo kale anna waxaan damcay inaan gacanta u taago inkasta oo uu shaydaankii kuwii qayliyey oo yidhi ha taaban haddana waan qabsaday mise dhammaantaanba waynu barafownay marun baynu aragnay dadkii iyo dhismayaashii iyo goobtii oo dhan oo galdhacsanaysa galka ka dhacaana uu hawada raacayo dhulkii caadiga ahaana nooc kale ayuuba isu dooriyey balse ninkii afka duubnaa iyo inagu toona maynaan galdhacsan waxaana aynu aragnay wax inaga argagixiyey mudaharaadayaashii oo dhammi way qarsoomeen caalamkiina waxa uu noqday qaabka ugu foosha xun ee aad suuraysan karto shaydaankii kuwii ee qurxaanka ahaana falxumadii qarniga ayuu noqday oo shaydaan ayuunbuu ahaa si cadho lehna waxa uu u eegayey muuqaalkan foosha xun ninkii ayaana ina kaxeeyey isagoo ina leh miyaan markii ugu horraysay laydiin sheegin inuu shaydaankani yahay shaydaankii luminta iyo humaageynta maxaad u raacdeen weliba waad rumaysateen wixii uu idinka sheekaynayey war waxaas uu ku hantaatacayay oo dhammi waa huuhaa iyo been miyidinan dhaadanayn inaad joogtaan caalamkii warbaahinta kuwiina uu yahay shaydaankii saxaafadda miyaan ugu horrayntiiba idiin sheegin inuu yahay khiyaamada aad mar walba ku degmaysaan ee haddana aad rumaysanaysaan haddii aanu mid naga mid ah idinka soo gaadhinna caqligaba wuu idinka qabsan lahaa oo idin leexsan lahaa iminkana waanigaa idinka soo kaxeeyey waanan idinka tegayaa ee iska jira inaad mar labaad ku kadsoontaan shaydaankaas kadib markii uu ninkii dhaqaaq maagay ayaan ku idhi u kaadi niyow halkii ayaynu joognaa maxaa caalamkiina ku dhacay ninkii wuu ka hoodhay diirkii beenta iyo baadiyeyntu caalamka iminkana wax walba xaqiiqadiisii ayaad aragtaa waxaadna hadda joogtaa caalamkii xaqiiqada aniga oo muxuu caalamka xaqiiqadu sidan oo dhan mugdiga ugu yahay ninkii sababta oo ah iyaga ayaa xaqiiqada mugdiga baday oo dayacay oo qariyey beentana muujiyey oo nuuriyey oo baahiyey xaqiiqadana ruux dhankeeda u gucleeya oo u dhibtooda mooyaane dhaya laguma ogaanayo ruuxa si dingiigsada ee warbaahinta u dhigta ka maala sida uu caalamku maanta badiba yahay waxaan been ahayn ma weeleeyo aniga oo adiguna kumaad ahayd ambabax ayuu isu diyaarinayay isaga oo aan waxba inoo sheegin
ayuu iska tegey. waxaana aynu maqalnay mandaraqyo wax lagu garaacayo oo buur aan inaga fogeyn ka baxaya. haddii aynu dhankii dhawaqa usoo dhaqaaqnayna waxaynu ka ilsuganay rag badan oo buurta hoosteeda jafaya si ay wax uga soo fufujiyaan. waxaana inaga hor yimi carruurtoodii oo boodhka saaran awgii indhahooda oo qudha caadi looga arkayo. waxayna ina yidhaahdeen, ma waxa aad tihiin gargaarkii degdega ahaa? kuwaas ayaanu u baahannahay oo wiilkan ayuu aabihii dhintaye waxaanu doonaynaa inaad dib u soo noolaysaan. intaynu isdhaafinay su-aashoodii ayaan weydiinay, oo maxaa ku dhacay? mid ka mid a ciyaalkii ayaa inoogu jawaabay, wuu neefqabatoobay. manaanan garanayn waxaanu u qabanno. aabbayaashayana badankoodu neefqabatowgaas ayay u dhintaan. marna hogagaas ayuu qarax kaga kacaa oo uu ku laayaa. ama wiilkii oo hadalkii bartanka kaga jira ayaynu jug iyo dhacniin weyn oo kadisa maqallay. haddii aynu eegnayna hog dhan ayaaba dumay. raggii qodayeyna wuu ku dumay. intii ka baxdayna dhagaxaantii ka soo daadatay ayaa ka daba timi oo askaaxooda gurtay. yarkii oo si qoosi ku jirto hadalkii usii wataana waxa uu yidhi, amaba dumitaan ayaa laaya aabbayaashayo. maalinkiiba 5 aabe ayaa sidaas nagaga dhinta. sanad buura ahna sidaas ayaynu ku jirnaa. ee mudanama waxaad u timi inaad xaalkan wax ka beddesho. wiilkii ayaan warsaday, oo haddii ay maalin walba 5 nin dhintaan maxay shaqada u sii wadaan? nin ayaa dabadayda ka yeedhay oo igu yidhi, oo yaa ku yidhi waanu sii wadaynaa? waxaanu ku mudaharaadaynaa Rockefeller oo aanu ka dalbanaynaa inay badqabka shaqaalaha kafaalo qaadaan. waxaan ugu warceliyey oo waxaanu maqalnay inay Rockefeller tahay shirkadda ugu wanaagsan dhanka shaqaalaheeda jinsiyad kastaba ha lahaadeene. ninkii ayaa ii eegay si argagax leh oo isaga oo hadalkayga ka xanaaqsan sheeko dheer bilaabay.